halkan waxaynu ka bilaabaynaa buugaagta taxanaha ee loo yaqaano English for Everyone oo ah buugaag heer caalami ah oo muhiim u ah arday kasta oo doonayo inuu barto luqadda Englishka ku hadalkeeda. waxaynu bilaabaynaa level 1 ama beginner oo ah buugga koowaad. waxaynu qaadan doonaa cashirka koowaad. casharadan waxaan kala soconaynaa dhanka YouTube-ka Fan Academy iyo sidoo kale Facebook-ka Fan Academy. waxaad kaloo ka heli kartaa casharadan dhanka website-ka www.fanacademy.com. buugaagta oo PDF ahna waxaad ka heli kartaa ama kasoo dalban kartaa nambarka xagga hoose ee description-ka ku qoran ama kaaga muuqdo dhanka shashada. dhanka WhatsApp-ka iyo Telegram-ka nagala soo xiriir. waa khidmad yar oo la awoodi karo. soo dalbo hadda, isla haddana hel. buuggan wuxuu wataa cod. codkana waxaad ka heli kartaa website-kan halkan kaaga muuqdo. sidoo kale waxaad ka heli kartaa Telegram channel-ka Fan Academy. kusoo biir Telegram channel-ka, isagana waxaad ka heli kartaa xagga hoose description-ka. sidoo kale waxaad booqan kartaa website-kan www.dkefe.com ama la soo deg abka website. haatan waxaynu qaadanaynaa cashirka koowaad ee buugga English for Everyone. cashirka koowaad ciwaankiisu waxa weeyaan introducing yourself. waxa weeyaan marka aad doonaysid inaad dadka isbarto, adigaa doonaysid in lagu barto weeyaan. introducing yourself. You can greet people by saying hello or hi. Introduce yourself using I am. You may also need to spell out the letters of your name. You can greet people. waxaad ku salaami karaysaa dadka by saying adigoo odhanaya ama dhahaya hello or ama hi. waxaad dhihi kartaa hello ama hi. hello iyo hi waa salaan ingiriis ah. midkood ayaad isticmaali kartaa. introduce yourself. waxaad dadka isku bari kartaa using adigoo isticmaalaya I am. waxaad leedahay I am. anigu waxaan ahay weeyaan. You may also need. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad u baahato to spell out. inaad isbeel garayso oo aad hingaadiso the letters of your name. xuruufta magaca uu ka kooban yahay inaad isbeel garayso, isbeelin aad ku samayso. yacni markaad ali tahay oo kale aad tirahdo A-L-I. new language using to be with names. vocabulary, names and letters. new skill, saying your name. intaas ayuu ka koobnaan doonaa cashirkan. inagoo isticmaalayno verb to be-ga is iyo are. sidoo kale magacyo iyo xuruuf iyo sida loo sheego magacaaga. key language-ka cashirkan waxaa weeyaan saying your name, sida loo yiraahdo ama loo sheego magacaaga. There are different ways of greeting someone and introducing yourself. There are waxaa jiraan different ways of greeting. noocyo badan oo loo salaamo qofka someone and introduce yourself naftaadan loo baro. ereyga letters waxaa laga wadaa letters. letters waa in American accent. British accent waxaa letters. greeting. This can be a formal or informal greeting or greeting. markaad dadka salaamayso
laba qaab la isticmaali karaa formal or informal. Formal waxa weeyaan habka nidaamka caadiga ah ee dadka waaweyn ay isticmaalaan manaahijta lagu qoro idaacadaha loo isticmaalo sida nidaamka caadiga luuqadda u degsan. Informal waa habka iska caadiga ah ee casualka dadka caadi iska isticmaalaan ee speakingka loo isticmaalo. This can be a formal or informal greeting. Marka waxay noqon kartaa formal ama informal salaan ah. Hello, I'm Layla. Hello, I'm Layla. Magacigu waa Layla. Ahlan, magacigu waa Layla. You can use I am plus your name to introduce yourself. Waxaad isticmaali kartaa I am plus lagu daray your name magacaaga to introduce yourself si aad ummadda isku barto. Hello, I'm Layla. Weeyaan. Sanaanta marka waxaa waaye Hello, I'm Layla. This is an informal greeting. It is often used in casual conversation. Tan waxa weeyaan informal greeting. Our greeting. It is often used in casual conversation. Badanaa waxaa loo isticmaalaa wada sheekaysiga caadiga casualka familka asxaabta dadka macrifada ka dhexeyso loo isticmaalaa. Hi, my name is Joy. You can also use my name is plus your name to introduce yourself. Sidoo kale waxaad isticmaali kartaa my name is adoo oranaya plus la raaciyay magacaaga. My name is Joy oo kale. To introduce yourself saa dadka isku barto. Marka labadan qaab isticmaalaynaa lana hello, I am ama hi, my name is. Kadib waxaan raacinaynaa magacyadii. Hello, I'm Layla oo kale. Hi, my name is Joy. Labadaas qaabba dadka waa la isku bari karaa markaad doonaysid inaad isbarto ummadda. Waa formal iyo informal. Waxaan rajeynaa intaa inaad isla fahanay. Other ways to say your name. Qaabka kale ee magacaaga loo sheego. Other ways to say your name. In conversational English, speakers often use contractions. These are shortened versions of base of words. These are shortened versions of base of words. In conversational English, Ingiriisiga wada sheekaysiga ah ee ku hadalka, speakers kuwa hadlaya ee ku hadal luuqadda often use badanaa ama had iyo jeer waxay isticmaalaan contractions qaab la soo gaabiyey. Contractions qaab la soo gaabiyey. These are shortened versions waa qaab la soo gaabiyey of base of words erayo beer ah isku xiran. Tusaale, I am Layla waa qaab caadiya. Contracted version am contracted formka waa qaabkan. I'm Layla. I am Layla. Waxaa la sameeyey eeda la tuuray apostrophe ayaa la saaray. Waa contracted form. I am Layla. I'm Layla. I'm Layla. I'm Layla. Other ways to say your name. Qaabka kale ee magacaaga lagu sheego ama lagu dhaho. In conversational English, Ingiriisiga ku hadalka ee wada sheekaysiga, speakers often use contractions. Dadka hadlaya ama ku hadal luuqadda inta badan waxay isticmaalaan qaab la soo gaabiyey. Contracted ah. These are shortened versions of pairs of words. Waxa weeyaan qaab erayo la soo gaabiye ah. Shortened versions of pairs of words. I am Layla waa qaab caadi ah. I am Layla qaabkan waa qaab la soo gaabiyey. Eeda la tuuray waxaa la saaray booskeeda apostrophe. You can contract I am to I am.
qaabkan la soo gaabiya qoraal ahaan. My name is Joy. My name is Joy. You can contract name is to names. My name is Joy. Magacaygu waa Joy. My name is Joy. Magacaygu waa Joy. Waa qaab la soo gaabiyey. Isti ayada la tuuraya apostrophe iyo s ayaa nameka la raacinaya. Waa contracted form. How to form saying your name. qaabka loo sameeyo marka magacaada sheegayso waa subject to be iyo name. Subject to be iyo name. Subject waa falsameeyaha, waa qofka ficilka sameynayo. To be na waa verb to be ga is ayaa la yidhahdaa to be. Name na waa magaca qofka. My name is Layla. I am Layla. I am Layla. My name is Layla. Magacaygu waa Layla. I am Layla. Anigu waxaan ahay Layla. Labadaas qaab waa loo isticmaali karaa. Use a capital letter at the start of a name. Use a capital letter. Isticmaal capital letter and xaraf weyn oo capital ah at the start of a name. Bilowga magac kasta. magaca bilowgiisa waa inaad weynaysaa. dad qorayso jaamac waa jeed inaad weynaysaa. Ali eeda weynay. Fatima efta weynay. Use isticmaal a capital letter or capital letter at the start of a name. Bilowga magaca u isticmaal xaraf weyn. Rewrite each sentence in its contracted form. Listen to the audio, then number the people in order in which they speak. Dhegeyso codka kadibna qaabka saxda isugu aadi. Tusaale, my name is Jack. waxaa dib loogu qoraa saan oo kale. My name is Jack oo qaab contracted form ah. Contracted form. I'm Charlotte. Contracted formka la imow. My name is Una. My name is Simon. I'm Carlos. qaybtan waxaa waa listen to the audio. dhegeyso codka. Then number u yeel the people in order. si nidaam ah isku xigxigo in which they speak. qaabkay u hadlayaan isugu xiji weyaan. number ahaan. number 1, number 2, number 3 si isugu xigaan u samee. adoo dhegeysanayo codka. iyadoo cod ah waxaad ka heli kartaa website-ka aan tilmaamnay ama janalka Fan Academy, Telegram janalka Fan Academy. I'm Yuan. My name is Miriam. I'm Sarah. Use Jart to create 12 correct sentences. isticmaal jaartiga noocaan oo kale ah si aad u samayso ama aad u abuurto 12 jumladood oo sax ah. And say them out loud. kor ugu dhawaaq. marka codka dhegeyso iyagana. Hi, my name is Linda. Hi, hello. Start with a greeting. marka kuwaad ku bilow salaan. Hi ama hello isticmaal. Use a subject. dooro subjectiga hadduu yahay my name ama I hadduu yahay. Use a verb form is ama midkood dooro midka ku habboon. Finish with a name. kadibna ku dhamee magac Linda, Abdul, Paulo. Hello. Key language is spelling your name. Spelling your name. qaabka loo hingaadiyo your name magacaaga. How do you spell your first name? This is how you ask someone to spell their first name. How do you spell your first name? waxa weeyaan this is how you ask. waa qaabka aad u weydiinayso someone qof to spell inuu ku hingaadiyo their first name. magaca kuwaad qofka uu leeyahay. Their first name.
My name is Jacob. J-A-Z-O-P. You say each letter. xaraf kasta waad sheegaysa waad ku dhawaaqaysaa markaad isbeelinaysa magacaaga hadii lagu yiraahdo ali waxaa leedahay A-L-I. How do you spell your last name? sidee u isbeel garaysaa magacaaga u dambeeya last namekaaga. This is how you ask someone to spell their last name. qaabkan waa sida lagu weydiiyo qofka inuu ku isbeel gareeyo magaciisa ugu dambeeyo. Williams, W-I-L-L ama double L oo dhihi kartaa ama L-L-I-A-M-S. How do you spell your full name? This is your first name and your last name. Full name waa magacaaga dhammaystiran. waa first name iyo last name. magacaaga kuwaad iyo magacaaga u dambeeyo. yani magaca aabaha. Jacob Williams, J-A-C-O-B, W-I-L-L-I-A-M-S. qaabka loo weydiiyo iyo qaabka looga jawaabo noocaas weeyaan. haddii lagu yidhaha how do you spell your first name, qofkood u sheegaysaa magacaaga koo si loo spell garayo. How do you spell your last name, magacaaga u dambeeya isha hadduu ku yidhahdo magacaaga u dambeeya keliya sheegaysaa. haddii lagu yidhahdo how do you spell your full name, labadaada magac dhammaystiran u sheegaysaa. hadba qofka siduu kugu weydiiyo ayaad uga jawaabaysaa. hadduu ku yidhahdo your first name, magacaaga bis u sheeg, magaca aabaha ha u hingaadinin. hadduu ku yidhahdo how do you spell your last name-na ka aabaha u sheeg. hadduu ku yidhahdo how do you spell your full name, gebi ahaan u sheeg. Pronunciation the alphabet, sida loogu dhawaaqo alfabeetada. qofku markuu wax isbeelinayo waa inuu yaqaano ABCD, waajib weeyaan. Listen to how the letters of the alphabet are pronounced in English. dhegayso sida loogu dhawaaqo alfabeetada Ingiriiska. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ereygan H ma aha, waa H Ingiriiska. H. Listen to the audio as people spell their names and write out each spelling. dhegayso codka Ingiriiska ah. As people spell their names, sida ay goorta ay dadka ay isbeel garaynayaan magacyadooda. And write out each spelling. spelling kastana qor. saan oo kale. Jack Lloyd, dhegayso oo qor. Spell out each person's name. They say the sentence out loud. sidoo kale isbeel garay qof kasta magaciisa. Then say the sentence out loud. ku dhawaaq jumladda. My name is Gabriel. saan oo kale. Gabriel isbeel garay kuna dhawaaq. My name is Molly. My last name is Bashir. My last name is Lopez. I'm Ben James. I'm Nadia Latif. noocaas oo kale weeyaan. dhegeyso codka.